مركزنا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب. مركزنا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب. مركزنا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب. بالعلم والإيمان مركزنا ينادي وصحبة القرآن مركزنا ينادي نبغي رضا الرحمن. مركزنا ينادي والفوز بالجنان مركزنا ينادي. بسم الله إن الحمد لله نحمده جل شأنه اللهم علمنا بما جهلنا وارزقنا علما نافعا. أما بعد dhammaan culummada iyo akhyaarta meesha iskugu timid waan soo dhaweynahayaa anigoo ku hadlahaya magaca macalimiinta markazul madiina ayaa maantay kulankeena wuxuu daaran yahay maantay nadwo lagu difaacaya nabiga sallallahu alayhi wasallam ciwaankeeduna uu yahay an-nadwatu fi difaaci khayr al-bariya. nadwadaas oo uu soo qaban qaabiyay markazul madiina ayna nagala qayb qaadanayaan culummada kale ah sheekh doctor Musa Aways oo ka hadli doona mal waajibu calayna naxwa rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam iyo doctor cabdulcaziiz cali axmed oo ka hadli doona maa shahida lahu alacdaa sala allahu calayhi wasalam. sidoo kale sheekh bashiir sheekh xasan oo ka hadli doona mucaamalatuhu sala allahu calayhi wasalam maca alkufaar iyo sheekh maxamed asad ducaale alazhari oo ka hadli doona man huwa muxamed sala allahu calayhi wasalam qabla alrisaala wa bacda alrisaala. idan dhammaan culummada ayaan ku wareejinaya mikrofoonka waxaana leeyahay soo dhowaada. nadwadana waxaa noo qaban qaabiyey markazul madiina lita'hiil ilcilmi oo ku yaala xaafadda isliim markazul hidaaya dabakhiisa labaad iyo dabakha saddexaad. soo dhowaada dhammaan. haddana waxaa noo bilaabi doonaa hadalka oon ku wareejinaya sheekh maxamed asad alazhari oo ka hadli doona man huwa muxamedun sala allahu calayhi wasalam qabla alrisaalati wa bacdaha. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا رب صل على النبي المصطفى ما غردت في الأيك ساجعة الربا. يا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد يثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا. صلوا على من ظللته الغمامة والجذع حن له وناصر في الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا. صلى وسلم عليه ذو الجلال ما لبى ملب أو تحلل محرم. وعلى قرابته المقرر فضلهم وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا ضاءوا حموا زانوا هدوا فهم على الست الجهات الأنجم. وعلى التابعين الذين هم نقلوا لما حفظوا منهم عنهم. فصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى بمهدل أولا وآخرا شيء كستو النمعو إنسينا إلهي سبحانه وتعالى أياكم هدسن. nadwadan maanta uu markiisul madiina lita'hiil ilcilmi uu soo qaban qaabiyey waxay ka mid tahay ka qayb qaadashada lagu difaacayo nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi oo qof walo muslimana uu qaybta uu awoodo uu kaga qayb qaadanayo. waan mahad celinayaa markiisul madiina inuu saa uga qayb qaato oo ay nagala joogaan doctor cabdulcaziiz iyo sheekh maxamed oo daadiyaha ahaa iyo culimada kale ay nagala soo qayb gashay nadwada soo ajiibay. ilaahay khayr ha siiyo dhammaantood. cid kasta oo dadaal ku bixisa nabiga difaaciisa salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi cirdigiisa oo la difaaco diintiisa oo la fidiyana ilaahay subxaanahu watacaala miisaankooda xasanaadka ha u saaro. qaybtan aniga iga khusaysa nadwada oo ah man huwa muxamedun salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi qabla alrisaalati wa bacdiha. maxamed waa kuma intii uusan waxyigu soo degin sidee buu ahaa nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi
markii waxyigu soo degay risaaladu u timina waa kuma nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamuhu calayh juska koobaad ama qaybta koobaad oo ah man huwa muxamedun qabla arisaala haddaynu ku bilowno intaynaan nihin maxamed waa kuma qabla arisaala waxaa muhiima inaynu garanno bii'adii iyo waaqicii uu ku noolaa lianna alxukma cala ashayi farcun can tasawurihi nebi maxamed wuxuu ku dhex noolaa dad juhalo ah aan diin lahayn dulmigu ku faafay nin waliba ninkuu ka xoog weyn yahay uu dulminayey beenta iyo isdhucu uu iska ahaa shay dhexdooda caadi ka ah bii'adaas ku dhex noolaa nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh saa darteed baa shucaradii jaahiliyadu markay ka warramaysay waxay ku dadaalayeen in reer waliba reerka kale uu iska dhiciyo waa kii lahaa alaa laa yajhalan axadun calayna fanajhala fowqa jahli aljaahiliina waa kii lahaa zuhayr ibnu abi sulma waman laa yadud can xawdihi bisilaaxihi yuhaddam waman laa yadlim innaasa yudlami qofkii aan sawax dulmin waa la dulminaya bii'adaasuu nebi maxamed ku dhex noolaa salawaatullaahi wasalaamu calayhi intaa haddaynu ka fahanay bii'adu ku dhex noolaa iyo wadcigeedu siduu ahaa iyo mujtamacu la noolaa nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi bii'adaas mayna saamaynin dhowr tusaale aynu ka soo qaadanno oo ka jawaabaya man huwa muxamedun qabla arisaala salawaatullaahi wasalaamu calayh qodobka koowaad aan soo qaadana waxay ahayd magicii uu la baxay ee loo bixiyey ee ahaa asaadiqu alamiin dad aan iyagu waxba isku aaminin nin waliba wixii lagu aamino ama loo dhiibto uu dhacayo mood iyo maalba run aan aqoonin baa nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh wuxuu ku caanbaxay laqabkaa asaadiqu alamiin taas waxay tusaysaa nebi maxamed sidee buu ahaa intaan waxyigu soo degin waxaa kaloo mithaal ah ka qaybgalkii uu ka qaybgalay xilfu lfuduul oo isaguna qisadiisu waxay ahayd dadku maadaama dulmi uu iska jiray nin aan maka u dhalan ayaa yimi maka nin reer maka ah ayaa alaabtii iyo badeecaddii uu watay ka iibsaday kala wareegay lacagtii buu u diiday marka qaraabadiisii buu u tegay war ninka xoolahayaga layga dhiciyo waa la diiday waxay noqotay marka inuu bannaanka intuu u baxo dhaho yaa xoolihii la soo dhicinaya dad markaa reer maka ka mida baa shir qabanqaabiyey shirkaa waxaa ka soo qayb galay nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi shirkaa wixii ka soo baxay wuxuu ahaa qof kasta oo la dulmiyo in laysgarab taago dulmiga iyo gardarrada lagu hayana laga soo dhiciyo taas waxay ku tusaysaa nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi ka qayb qaadashada uu ka qayb qaadanayo wixii ummadda hagaajinayey bii'adu ku dhex noolaa wanaag iyo samaha falka ah ee inuu kaga qayb qaadanayey da'diisuna isagoo weliba ay aad u yarayd oo culimmadu taariikhdu ay dhahaan 20 jir buu ahaa nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayh taas waxay ku tusaysaa marka wanaaggii uu ummadda kula dhex jiray iyo siduu ugula dadaalayey waxaa kaloo ina tusaya oo nebi maxamed waa kuma ka jawaabaya markii waxyigu bilowday ee maalinkii ugu horreysay waxyigu ku soo degay nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh qisadiisa waad la socotaan xadiiska imaamu bukhaari fii bad'i lwaxyi uu ku keenay isagoo aad u cabsanayo oo wixii uu arkay aad uga argagaxsan ayuu gurigiisii yimi umuna khadiiju u yimi radia allahu canha markii xoogay uu cabsidii iyo xoogay ay ka baxday oo xoogay ay ka xasishay oo xoogay uu degay baa wuxuu yidhi laqad khashiitu calaa nafsi naftaydan u baqay kelimaad markaa aad u qiimo badan bay umuna khadiija radia allahu canha ku sifaysay kallah wallahi maa yukhzika allahu abada inaka latasilu alraxim wataxmilu alkal وتعين على نوائب الحق وتحمل الكل وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وحي خلاصين يعني نبي محمد صلوات الله والسلام عليه سفدي سمحي أهي نين قرابة حريرية وضدك إهل كلا حريرية أيها إنك لتصل الرحم وحوها النبي محمد صلوات الله والسلام عليه نين عدي تمردرا u baahan in la tamantaabiyo oo la garab qaban jiray wataxmilu alkalla kalligu waa qofkii aan awood lahayn ama aan dantiisa qabsan karin wa huwa kallun calaa mawlaahu waa ku qur-aanku tilmaamay waxa ay ku sii tilmaantay wa taqri dayfa martida iyo ciddii u baahan in la karaameeyana waad karaamaysaa waa sifaad wada wanaagsan dhammaantood waxay ku tilmaantay inuu yahay nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhim wataksibu almacduuma aw watuksibu almacduuma qofkii faqiirka ah macduumku waa qofka faqiirka ah ee aan waxba haysan ee beerkiisa aan dhulka waxba ka xigin qofkaasna waa tabantaabisaa
وتكسب المعدوم بمعنى وتعينه وتعطيه وحبات سيسا أما وتكسب المعدوم وبعدا إن رادسو سوقف كاس وحوسيس فقيرك مركا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه مواقفتي iyo sifaadkiisa faraha badnaa kama gaari karno laakiin saddexda tusaale aan kaga gaabsano maxamed waa kuma salawaatullaahi wa salaamu alayhi intaan waxyigu soo digin waxyaalaha uu sameeyay iyo mawaaqifta lagu sifeeyayna dhamaantood shareecadu markay soo digtay waa ay qirta nabi maxamed waa kuma qaybtii labaad ee su'aasha bacda risala salawaatullaahi wa salaamu alayhi markii waxyigu soo degay nabi maxamed kumu aha waxaynu eegaynaa nusuusta quraanka bal hay aayad aynu ka soo qaadano ilaahi subxaanahu wa tacaala baa yaqaano ummadiisa iyo dadku abuurtay iyo dhaqankooda isagaa yaqaan alaa yaclamu man khalaqa wa huwa allatiifu alkhabiir ilaahi subxaanahu wa tacaala nebi maxamed markuu sifeeyey waxa uu ku sifeeyey wa innaka lacalaa khuluqin cadiim waxa uu ku korsogan tahay ama aad ku sifaysan tahay akhlaaq aad u qiimo badan oo weyn ayaad ku sifaysan tahay ayaa ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa lagu sifeeyey nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dabcan qur'aanku tacbiirkiisa kalimaadku soo dhacayaan alfaadiisu say u dhacayso intuu waa mucjiz insaan qur'aanku u cabiro oo laga dhigo inuu nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi akhlaaqda korkeeda uu ku korsugan yahay oo akhlaaqdii iyo dhaqankii wanaagsanaa ay noqoteen gaadiid nebigu uu saaran yahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxay ku tusaysaa sidii uu akhlaaqdaas uu si fiican ugu sifaysnaa oo meel kasta uu marayo ay la socotay waa qof daabadiisa fuushan oo meel kasta uu marayo daabadiisa ku maraya saasoo kale nebi maxamed wuxuu ahaa salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi akhlaaqdaas marnaba ayna ka zuulaynin aayaddaas waxaa fasirtay umuna caaisha radiallahu canha markii la weydiiyey akhlaaqdii nebigu maxay ahayd xadiiska imaamu muslim fi saxiixi ku soo saaray waxay tidhi kaana khuluquhu lqur'aan akhlaaqdiisu iyo dhaqankiisu waxay ahayd qur'aanka oo qur'aanka waa ku camalfali jiray ummadda markuu uu la dhaqmayo waa kula dhaqmi jiray dadka waaweyn qur'aanka manhajku jideeyey ayuu kula dhaqmi jiray saas darteed baa imaamu nawowi raxmatullaahi calayhi markuu fasiraya xadiiskan fi sharxi saxiixi muslim baa wuxuu leeyahay waxaa laga wadaa macnihiisu alcamalu bih nebigu qur'aanku ku camalfali jiray oo axkaamtiisa iyo awaamirtiisa iyo nawaahidiisa ku ayuu tadbiiqin jiray walwuquufu cinda xuduudihi xuduudiisa oo awaamirtii wixii la amray waa la imaan jiray salawaatullaahi wasalaamu calayh wixii laga reebayna waa uu ka tegi jiray wata'adubu biadabi alqur'aani qur'aanka adabkiisa iyo dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa ayuu tadbiiqin jiray taas waxay ku tusaysaa nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi dhaqanka iyo akhlaaqda wanaagsan ee uu ku sifaysnaa islaamka ka hor intaan risaaladuba soo degin iyo markii ay risaaladu soo degtay oo qur'aanku jidkii saxda ahaa uu jeexay ummadda loogu talagalay inay raacaan ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam dariiqa ugu toosan ee ugu wanaagsan ama dariiqa toosan oo saxda ah ayuu qur'aankanu ku hagayaa intaasaan rabaa inaan aan ku soo koobo maadaama xilligu iska kooban yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu u rajaynaynaa cid kasta oo difaacday nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayh miisaankooda xasanaadka ugu daro culimmadan sharafta badan ee nadooda ka soo qaybta gashayna mar labaad baan ayaan iyagana u mahad celinayaa hada wabilaahi towfiiq wasala allahu wasalama wabaaraka calaa cabdihi warasuulihi nabiy alamiin wasalaamu calaykum جزاه الله خيرا خير الجزاء شيخ محمد أسد أو كهد لهي من هو محمد صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة وبعدها هذا وحن كوري جنها يا هذا الكاشيخ بشير شيخ حسن أو كهد دون معاملته صلى الله عليه وسلم مع الكفار فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد مركب واد الله بان أمهد علينا سبحانه وتعالى ثم مركز المدينة للتأهيل العلمي وبرنامج كان برنامج صوت دياريي يندودا بان أمهد علينا مرصد أحد وحنا مهد علينا علماء كقريب جلسة ندودا دفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت كذب نبينا عليه الصلاة والسلام رقم كيس صدوقها ولا رقم شري دتك قالها waxaan ogsoonahay sideedaba nabiga calayhi salaatu wasalaam naxariis buu ahaa naxariistuna waxa weeyaan ruux kasta meesheeday ku gaadhaa wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin naxariis kownkana oo idin loo soo diray hadduu mar naxariis ahaa
kakanaan iyo cunfi iyo dhib lagama filaya nabiga sala allahu alayh waali wasalam. ilaahayna wuxuu ku safeeyey fabimaa raxmati min allahi linta lahum walow kunta fadan galiida alqalbi lam faduu min xawlika. yani naxariis ilaahay sababkeed baad ugu dabacsanaatay, haddaad hadal adkaan lahayd, qalbi qilafsanaan lahayd, way kaa kala didi lahaayeen dadku. sidaa matiida waad u dabacsan tahay. makhluuqan insiga iyo jinniga laguu soo diray labadaasa loo soo diray. ilaahayna wuxuu ku tilmaamay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam laqad jaakum rasuulu min anfusikum caziizu calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim. tilmaamahaas cajiibka oo rabbi ku sifeeyey yaa nabiga kaaga filan dhaqankiisu noocuu noqon karo. laakiin tusaalayaal aan soo qaadano, nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam markii lasoo diray loo soo diray dadka hadda laga sheekeynaya gaalada ahaa, nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wax kasta oo qiimo badan wuxuu ku bixiyey dadkaas inuu dulmigii iyo jahligii ay ku jireen uu ka soo saaro, iftiinka diinta islaamkana uu soo saaro, isagoo wax kasta oo dhib a kaga imanayey. haddana nabiga calayhi الsalaatu wasalaam dadka gaalada ee welibana reer maka wuu u sabrayey. kolba waduu marayey, markaasuu dadka wuxuu ku lahaa quuluu ayuha الnaas quuluu laa ilaaha ila اllah tuflixuu. adeerkii baa daba socda abilahab oo wuxuu leeyahay inahu saabiun kaadibun, war waa nin diintiisii ka noqday oo beenaalo ah. waa la weydiinaya ninkan muxuu yahay, dadka ugu yeedhaya laa ilaaha ila اllah, waa nin rasuul sheeganayo lasoo diray leeyihin, waa gaalay ahaayeen. kan daba socda beeninayana waa adeerkii oo aabihii la dhashay. dadka noocaas ula dhaqmaya nabiga calayhi الsalaatu wasalaam. maca dalika ilaahay buu hidaaye u weydiinaya inuu ilaahay soo hanuuniyo. yuu nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ilaahu baryaa sida ugu naxariis badan yahay ee ugu turid badan yahay oo u rabo ummadoo dhan inay naar ka badbaadaan. isagu wuxuu rabaa inay ummaddanoo dhan naar ka badbaado, ciqaab rabbi ay ka badbaado, janno rabbi ay galaan, towxiidka markay ku dhawaaqaan. tusaalayaalka haddaan markaa soo qaato nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam iyo gaalada si loo dhaqmay, aan ku bilaabo qisadii daa'if. maalintii intuu maka ka degay caamulxusni, intuu meesha ka baxay maka uu daa'if tegey, raggii walaalaha u tagay uu yihi diinta u bandhigay, hadalladii qalafsan ay ugu jawaabeen, uu ka dalbay inaysan waxba u dirsanin. markuu ka baxayay daa'if yaa waxaa lagu diray dadkii makastaa, dumarkii iyo caruurtii iyo addoommadii wixii baa lagu diray. nabiga calayhi الsalaatu wasalaam markuu ka baxay is yidhi dhagax baa lagu bilaabay. salawaatu rabbi wasalaamu calayh. nabiga calayhi الsalaatu wasalaam dhagixii lagu garaacayaya lugihiisii sharafta badnaa dhiiggii ka qumayaa dhulka qabtay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. meel uu socdo isagoon garanayna nabiga calayhi الsalaatu wasalaam iyo wejigiisa isaga dhaqaaqay. meel cidlaa markuu marayu jibriil la hadlay, wuxuu ihi malakuljibaal baa ila socda, maantana waxaad amartu yeelayaa. malakuljibaal baa la hadlay malagii buuraa, markaasu wuxu labadan buurood aan isku dhuftoon halaago. nabiga calayhi الsalaatu wasalaam hadalkiisu muxuu ahaa? maya buu yihi, u fiirso, haddaa la soo dilay, haddaa lugaha laga soo dhiijiyey, haddaa meel alla meel uu socdo uusan garayn, walbahaaroo dhan isugu yimid. xaaladda noocaasaa ninkii gargaar kuula yimaada maxaad samayn lahayd? baabi un baad odhan lahayd. laakiin nabi maxamed sala allahu alayh waali wasalam dhaqankiisii iyo dadkii cadowga ku ah siduu ula dhaqmay, wuxuu yihi maya, bal arjuu an yukhrija allahu min aslaabihim man yacbud اllaha waxdahu walaa yushriku bihi shay-an maya buu ihi ilaahay baa waxaan ka rajaynayaa kuwan sidan ii galay ee dhibkan ii geystay dhabarkooda inuu ka soo saaro dad ilaahay caabudoon ilaahay xaqiisa waxba la wadaajinin. hadafka nebigu ma ahayn dadku inay baaba-aan, inay dadku dhammaadaan, inay wada dhintaan maan. hadafka nebigu wuxuu ahaa in la taxqiijiyo qadiyadii kownka loo keenay oo ah wamaa khalaqtu اljina waاlinsa ila liyacbuduun. ujeedadaasuu nebigu lahaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. naftiisa waxa soo gaadhana yani wuu u sabray nabigu sala allahu alayh wasalam, naftiisana weligiiba uma argoosanin. qadiyada labaad waxay tahay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam dhibabkii loo geysta waxaa ka mid ahaa naag yahuudiyad ah yaa inta aayar lax soo sumaysay, neef adhi ah, yay nebiga u keentay. nebiga hilibkii wuu cunay, wuuna ogaaday inay sumaysay. intii loo yeedhaa waxaa la yidhi maxaad uga dan lahayd? nebigu u yeedhay yaa wuxuu yihi maxaad uga dan lahayd neefkan aad iisoo sumaysay? si cad baa waxay u tihi waxaan rabay inaan ku dilo. nin madaxweyne oo maanta la macron oo la yihi waxaan rabay inaan ku dilo, waxa uu samayn lahaa maxay tahay? waxa uu samayn lahaa hadda wuxuu samaynaya wax ka sii xun buu samayn lahaa.
laakiin nebi moxamed isagoo loo caddaystay oo tidhi inaan ku dilaan rabay aayar wuxuu yihi ilaahay iguma kaa sallidayo saxaabadii waxay dhaheen soo ma dilo rasuul allahu nebigu wuxuu ihi maya lama dilayo waa ruux caddaystay inuu nebiga inuu dilo uu rabay nebigu laakiin siduu ula dhaqmay naagtaas yuhuudda ee nebiga inay disho caddaysatay inay rabtay nebigu waxau ihi sala allahu alayh waalihi wasalam maya lama dilayo qadiyada saddexaad iyo tusaalaha saddexaad waxaa weeya nabiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo safar layahaa meel la degay markii la degay yaa geeda la kala hoos harhsaday nebigu seeftiisii buu meel iska sudhay nin gaaloo socdaa u yimid seeftii nebigu qaatay galku ka siibay baasha walalacda haysuu nabiga intuu toosiyuu la dul istaagay kaasuu wari maxamedow yaa iga kaa celin nebiga geesi waa inta insaan geesiyuu geesi ahaa nebigu mauna argagixin ma boodin ma cararin wuxuu hi ilaah baa iga kaa celin seeftii baa ninkii ka dhacday nebigaa qaaday sala allahu alayh waalihi wasalam markaasuu war aniga yaa iga kaa celin hadda kaasuu war nin seef qaada kii ugu khayr badnaa nin oo noqo ninkii hadda seefta ku haystay ee inuu ku dila rabay adoo awood u leh haddaad qabato ninkii rasaasta inuu ku dhufto rabay maxaad samayn lahayd ka argoosan baad dhihi lahayd soo maa nebigu naftiisa weligii uma argaasano nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkii intuu isugu yeedhay oo arrintii u sharxu ninkiina faraha uu ka qaaday waa dhaqankiisa nabiga sala allahu alayh waalihi wasalam qiimaha badan iyo siduu gaalada u dhaqmi jiray qisada afraad waxay tahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam maalintii maka la furtay ee lagu soo noqday raggii sidaad ogeyd u galay ee madheerta madaxa u saaray ee si kasta u dhibay ee saxaabadiisii dhibay ee ka qaxiyey guriguu deganaaya maka ka qaxiyey ee u dhibaato geliyey inuu god irwaa ku cararo salawaatu rabbi wasalaamu calayhi welibana madaxiisa dul saaray isagii abuubakar mid kasta 100 neef oo geela dul saaray maalintii uu nebigu ka awood batay ee maka uu ku soo noqday isuna soo ururiyey yaa nebigu su-aal buu weydiiyey su-aashu weydiiyey waxay ahayd maxaad u malaynaysaan inaan maanta idinku samaynayo haddii raggii sidaa kuu galay ee hantidaadii iyo beledkaagii iyo gurigaagii kaa dhex saaray hadda welimana ballan qaaday ruuxii keena madaxiisa nolol iyo geeri ruuxii ku keena 100 neef oo geel uu leeyahay markuu ka xoog batay nebigu waxa uu yihi sala allahu alayh waalihi wasalam maxaad u malaynaysaan inaan idinku samaynayo waxay dhaheen waxaa tahay wiil khayr badan ku khayr badanna uu dhalay hadda khayr baan kaa filaynaa nebigu wuxuu yihi socda iska socda fasax baa tihiin cidna waxba idiinma haysato cid wax idiin haysata male nebigu sala allahu alayh waalihi wasalam sidaasuu yihi nebiga calayhi salaatu wasalaam dhaqan wanaaggiisa waxaa ka mid ahaa iyo dadka xitaa gaalada ah ee u shaqeeya nebigu siduu la dhaqmi jiray wiil yar oo yuhuuda nebiga u shaqayn jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh wiilkii baa bukooday nebiga calayhi salaatu wasalaam wiil yar oo shaqaalo ah yacni naxariistiisa iyo akhlaaqdiisu meeshay taaganta firso yaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu soo booqday madaxiisa agtiisu fadhiistay kaasoo wuxuu ihi islaam wiilkii aabihii buu fiiriyey aabihii wuxuu ihi adic abalqaasim abalqaasim wuxuu ku leeyahy oo nabiga uu ku wado yeel wiilkii sidii buu ku islaamay waa wiil yar nabiga calayhi salaatu wasalaam siduu ihtimaam u siinaya u fiirso ma u malayn maanta madaxweyne jira wiil yaroo shaqaalo oo gurigoodii ku xanuunsaday inuu soo booqan lahaa waa maya dhaqankaas maba ka suuroobaba ma dhici kartaba magacyo iyo balaayo baas baa loo bixin dadka nabiga calayhi salaatu wasalaam markaas waxau yihi ilaahay baa mahadle ilaahay ka badbaadiyey yacni naar ilaahay ka badbaadiyey haddii aan usoo noqono nabigeena calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisa maalin maalmaha ka mid anas binu maalik waxa uu leeyahy anoo nabiga la socda oo mara aada u adag uu qarqarka nabigu ku wato burda najraaniya oo aada u adag yaa nin baa ka daba yimid reebaadiya kaasuu nabiga maradii aada ugu soo jiiday maradii qallafsanayd baa nabiga calayhi salaatu wasalaam luquntiisa yay si xun u dhaawacday markaasaa wuxuu leeyahay war xoolaha maxamedo ilahay kusi wax naga sii nabigu calayhi salaatu wasalaam ma cadhoonin ma dhirfin war ninka qabta ma dhihin intuu aayar milicsada uu muusooday yaa wuxuu yihi siiya wax waqtiga ilaali sheekh siiya wax buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam yacni dhaqankiisa u fiirso hadda nin madaxweynaha maanta yaa heli karaba yaa u dhowaan karaba yaa arki karaba waa dad wada dhaalimiin oo og inay dhaalimiin yihiin kulligoodna cabsi ay ku wada jirto oo argagax ay ku jiro oo ninba ruux kasta uu iska ilaalinayo laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam hadda ilaahay baa soo diray naxariis buu ahaa naxariistii buuna ummadda ku maamuli jiray nabigu sala allahu alayh waalihi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam sida uu wax u taxgeliyay maalin maalmaha ka mid ah yaa janaaze lasoo agmariyay nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigu uu istaagay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi kaasaa rasul alla maxamed janaazada waa nin yuhuudi waa ruux yuhuudi nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh waalihi wasalam
alaysat nafsan soo naf ma aha naf bini aadmi oo karaamaysan soo ma aha diin ahaan ha hadduu doono wax doona hada laakiin naf bini aadmi oo ilaahay karaameeyo soo laqad karamnaa bani aadama an nabiga calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisa xitaa ruuxii meydka ahaa ee welibana yuhuudiga ahaa ka bini aadmi ahaan nabiga calayhi salaatu wasalaam yuu u qiimeeyey u istaagay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh adduunka akhlaaqda noocaas inaan laga helin baan u malay lagamana helayaba uma malaynaye abadan lagama helayaba nabigeena calayhi salaatu wasalaam hadigiisa waxaa ka mid ahaa iyo dabacsanaantiisa iyo dhimrintiisa waad garanaysaan nin baa aayar masaajidka iska soo galay reebaadi oo saxaabadiisa ka mid ah ma aha dadkii gaalada ay si loo dacmalay lakin saxaabadiisa ka mid ahaa aayar buu masaajidka iskaga gaajay waa lagu soo yaacay nabigu wuxuu ihi laa tasrimuuhu war ha ku goynina suga markuu kaadidii dhammaystay yaa nabigu wuxuu ihi biyo raaciya kaadida wadaan biyo raaciya isagiina wuu u yeedhay wuxuu ihi niyahu masaajidadan looguma talagelin waxyaabahan xunxun ee waxaa loogu talagalay salaad iyo qira'at lqur'aan iyo tasbiix iyo wax noocaasa loogu talagalay ninkii intuu aad nabiga ula yaabay dhaqankiisa iyo dabacsanaantiisa iyo qiimihiisa yaa wuxuu ihi allahuma arxamnii wa muxamadan walaa tarxam macnaa axadan ilaahu aniya maxamed keliya noo naxariiso ruux kale baa u naxariisan nabigu mar labaad haddana si dhib yar u daaweeyo waxau ihi laqad xajazta aw laqad xajarta waasican war raxmo ilaahay oo aada waasacad soo koobtee dadkao dhan bay ka wada badan tahay naxariista ilaahay nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka gaalada ah ama mucaahidiinteen dadka muslimiinta ku dhex nool muxuu nabigu ka yidhi annaga muslimiintanada gaalada ku dhex nool maanta laakiin siday ku nool yihiin bal isbarbar dhig baalays muslimiintu waxay ku sugan yihiin iyo nebiga meesha uu gaadhsiiyey dadka muslimiinta ku dhex nool meesha uu gaadhsiiyey ilaalintooda iyo xuquuq ilaalintooda meesha uu gaadhsiiyey nebigu sala allahu alayh waali wasalam nebigu waxa uu ihi man qatala mucaahidan ninkii ruux mucaahida dila uduga jannada ma uriyo u fiirso uduga jannada inuu gala iska dhaafe ma uriyo waxay keenaysaa ruux kugu dhex nool oo diin kala haysta oo adii ammaankaaga ku jira inaada sina u taabanin annagana maanta dadka annaga muslimiinta ee ku nool reer galbeedka magacyadaad aragtay iyo waxaad aragtay iyo dhibkaad aragtaa loo geysanayaa markaasaa nabigu wuxu uhi sala allahu alayh waali wasalam udugeedana waxaa laga helaa 40 sano in loo socdo mar kale nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh waali wasalam alaa man dalama mucaahidan waryaaday dhegaysta ninkii nin mucaahida dulmiya ow intaqasahu xaqah ama xaqiisa ka dhima ow kallafahu fowqa taaqati ama wuxuu awoodaya wax ka badan saara oo akhada minhu shayan bigayri diibi nafsihi ama wuxuu leeyahay isagoon raalli ka ahayn ka qaata fa ana xajiijuhu yowma alqiyaama anaa hortaagan oo maalinta qiyaama dood ula taagan ruuxii sidaa yeela ilaah baan idinku dhaariyey dhaqanka noocaasa iyo qiimaha noocaasa iyo ilaalinta xuquuqda iska dhaaf xaq muslime xuquuqdii gaalada iyo dadkii kula noolaa iyo kuwii ku dhibay intaba sidaa loola dhaqma ma laga heli karaa adduunka iyo diintan kufriga dimuqraadiyada la yidhaha beenta ka sheegeen iyo waxa musayifka ay wataan ma laga helaya maya abadan idan nabigeena calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisu sidaa ah munaafiqiintana waa taqaanaan sida ula dhaqmay ninkii cabdullahi bin ubay ibnu salool ahaa hadalladaad ogeydeen markuu yihi uu welibana inkiray ee ilaahay ku beeniyey ee ilaahay caddeeyey wuxuu yidhi yaa wuxuu cumar bin khadaab yihi rasuul allah kan maan kurka ka gooyo maya buu yihi dadku kuma sheekaysanayaan moxamed baa saxaabadiisii laynaya leanna dadku ku dhex jiray saxaabadaa loo malaynayey laakiin waxaa sun iyo qodax biyo ku dhex jirto muslimiinta aada u dhibaysa nabiga calayhi salatu wasalaam markuu dhintayna wiilkiisa cabdullaahi ah wuxuu yihi rasuul allow aabbahay maradaada aan ku kanfaysay nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo og inaan waxba aynu u taraynin haddana isagoo wiilkaas saxaabiga ilaalinaya yaa maradiisii lagu kanfay oo welibana uu ku tukaday markii dambe inkastoo laga nahiyey idan axbaab ilkiraam hadduu nabigeena dhaqankiisu sidaa ahaa gaalna sidaa ula dhaqmi jiray munaafiqna sidaa ula dhaqmi jiray muslimiinna de iskabada uu sidaa ahaa dhaqanka ka wanaagsan iyo akhlaaqda ka wanaagsan iyo raxmadda ka wanaagsan ee adduunka lagu helayo xaggee jirtaa ma ay jirto ninkii ku aflagaadooda soo ma aha ninkii ku xadgudba soo ma aha khalaas ilaahay baa ku filan inaa kafaynaaka almustahzi'iin ina shaani'aka huwa alabdar wallahu yacsimuka min annaas ilahay baa nabigiisa ku filan salawaatu rabbi wasalaamu calayhi nin iyo dameer ciyeyna nebi moxamed waxba uma dhibayo laakiin waajibka ina saaran waxaa weeyaan nin kasta oo muslim ah
qadarka uu awooday inuu nabi maxamed difaaco wax alla wixii uu ku difaaci karo oo sharcigu u baneeyey inuu ku difaaco maanta waa waajibna saaran lianna maa baqaau lummati bacda shatmi nabiyiha ummaddan maxaa uu haray haddii nebi maxamed marba la gaadhay inaad qabriga hoosta ka martaa kaaga khayr badan inaad adduun nebi maxamed lagu aflagaadaynayo dushiisa aad ku noolaato ilahan waxaan ka baryaynaa inuu xaqa nagu hanuuniyo wixii khayr uu la doonay iyo hanuunna ilaahay inuu xaqa ku hanuuniyo wixii kale ilaahay ogyahay inaysan hanuun iyo hidaayo uusan ilaahay la dooninna nebi maxamedna ku xadgubay ilaahay siduu doono iyo qaabkuu doono inuu uga filaado وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاه الله خيرا قد أجاد وافاد هذا وحن كو وريجينها يا دكتور عبد العزيز علي أحمد أو كهد لدون أصنه ما شهد له الأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد ولا ليال الله بما هذا سبحانه وتعالى نويسر كلان كان ومركز المدينة وسوق بنقابيي ولقاها الله رسولك صلى الله عليه وسلم دفاع عيسى لقد دفاع هيو كو أفلقا دودي لون الشيء هيو حقا لنا الدرنسين هيو إنه نميل إن حبونين أي كل عين قال إيه مسلم با دتك مسلمين اسكت المامي دتك كلا قال هذا رسولك صلى الله عليه وسلم أفلقات دي مركز كأي سوق ونقابي علماء نقال قيب قشنا أدبي هتسيهين الله سبحانه وتعالى كما ضيعوا أجر كان كوا الله كرديجو كوا أرورو حوض كان النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت قيامة بيه كعب ما كاسي ونلقى علن الله كرديجو ما دام أي استاجين ماشان إن رسولك صلى الله عليه وسلم دفاعي سيو إن لقد دفاعه قال ذا سكو إذا بدرهوتي مركا ولا ليال يا رسولك صلى الله عليه وسلم مركي اللي قوليه هلقاها الله وحي أعدادي سيكشاقين وإن لو هشنا يا مويان أنك وحان وفلا إلهي سبحانه وتعالى وحا وكت المامي ما دام إلهي سبحانه وتعالى أون كان لن أبوري ما ملهيي ورسولك صلى الله عليه وسلم حالديس ونوشيغي أننا أنو أرغني دينتي أنو هايسنا إلهي نو إرزاقي انتا سانو فلان لكن وحالك كاشدا ددك عادنا وآه روح عدوغا وحي وكاشيغو أو رن ولا قاطا روح عدوغا روح صديقا هداد بين كشيكتان لما قاتو لا يقبل في صديقه ولذا قال الأحنف لابنه وحكيري يا بني يكفيك من شرف الصدق أن الصادق يقبل قوله في عدوه نينك صادقا قول كيسو عدوك وكشيغو ولا أقبليا ومن دناءة الكذب نوحاكو فلا أن الكاذب لا يقبل قوله في صديقه لكل شيء حلية وحلية المنطق الصدق يري مركا وحنو كسو قادنينا أعدادا سي رسولك صلى الله عليه وسلم iyagoo insaaf samayn haya waxay ka sheegeen rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka cadow kale ee gaal ah oo iska hadlay oo rasuulka wax ka sheegay waxaanu leenahay horta saaxiibada ee kuula jiro rasuulka aan rumaynin waxaasay ka sheegeen adiga maanta azma ku jira oo xanuun ku haya akhlaaq kale oo aad u liidata ilaahay intuu kugu irzaaqay ayaa naftaada stresska iyo nafsiyaadka ku hayo ayaa waxaa damacday inaad ku aflagaadooto ruux aadan gaari karin ruux ku qaylinhayo oo kale samadaas iyo cirkaasi ku qaylinhayo iyo dameer iska ciyay oo kugu ciyay muxuu ka qaadaya marka waxa weeyaan macna daridaada iyo meeshuu ilaahay ku dhigay ayaa dadka tusaysaa kuwa gaalada ee kula saaxiibka ah ayaa arkaya macna darida meesha taagan tahay marka walaaliyaal rasuulka sallallahu alayhi wasallam kaana wuxuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam acafu an-nas nafsan dadka muxuu ahaaye ugu dhoorsoon buu ahaa wa arjaxu an-naasi caqlan dadka ugu caqli badan buu ahaa wa asdaqu an-naasi lahja dadka ugu ran badan xagga carabku ahaa wa acdamu an-naasi amaana dadka xagga amaanadana ugu weyn oo amaano ugu ilaalan badan buu ahaa taasna waxaa ku markhaati kacay acdaadiisii iyo asdiqaadiisa way ku markhaati kacayeen saxaabadiisii walidaa rasuulka sala allahu alayhi wasalam loogu magacaabi jiray isagoon muxuu hataa la dirin asaadiqu alamiin oo loo ay u soo taxaakumi jireen jaahiliyadii isagana ay ku kalsoonaayeen marka
rasuulka sala allahu calayhi wasalam khuluq kasta ee wanaagsan ee dadka ku habboon inay akhlaaq ka dhigtaan isagaasaa ilaahay siiye intii ugu badnayd subxaana wa tacaala khuluq kasta ee xun ee dadka ay ka cararaanna fa huwa aslamu nnaasi min hada alkhuluq ninka ugu fog oo ugu fog buu ahaa akhlaaqdaasi rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka maada qaala acdaa'uhu acdaadiisa waktigii rasuulka uu noolaa iyo waktiga hadda aynu joogno haddaynu fiirino amaa waktiga hadda aynu joogno rasuulka sala allahu calayh wasalam acdaadiisa waad garanaysaan quraysh kufaaru quraysh ayaa ugu darayduu la joogay oo na dhibi jiray maca daalika way qirsanayeen rasuulka sala allahu alay slam inuu run sheegay qad yaxzunuka aladii yaquuluun fainahum laa yukadibuunak walaakina الظaalimiina biaayaati اllahi yajxaduun saasuu ilaah yihi subxaanaه wa tacaala aayaddan markay soo degtay waxaa ka horeysay abu jahl ayaa la weydiiyey ka waran baa la dhahy maxamed nin baa weydiiyey oo saaxiibkii ah akhnas ibnu shariiq wuxuu yihi bal iga waran waxna maqlahay ma laha ani adin baa fadhinay bal maxamed wayxaka wallahi inahu la saadiqu dheh waa wallaahi baan ku dhaaran ninka run buu sheegahayaa nabi maxamuud buu ku dhahay maba ku beeninayna waxaad la timid baan beeninaynaa ma beeninayno wuxuu la yimid baan beeninaa rasuulka ma beeninayno marka waa xasad weeyaan xasadnimo ku jirtay ayay saa u yeeleen markaasaa li maxaad u rumayn la'dahay markaasuu yihi banuu qusay way quudiyeen waan quudinay way waraabiyeen waan waraabinay waxay qabteen waan qabanay minaa nabiyi bay dhaheen nabi baa naga soo baxay mataa nudriku haada goormaynu gaaraynaa buu yihi meeshaas goormaynu gaaraynaa minaa nebi hadduu dhahay hadday dhaheen reer bani haashim annaga goor baan gaaraynaa marka xaasidnimo un bay u yeeleen ilaahayna xaqa wuu dhaafiyey naaru jahannama ilaahay ku guray subxaanahu wa tacaala marka way ogaayeen waadna garanaysaan qisadii ee lagu dhisahay kacbada markii kacbada ay dhammaatay oo dhagaxa yaa meeshiis dhigahayaa la yidhi say taariikhda qortay yaa laysku qabsaday qabiilada dhan annagaa dhigayna annagaan dhigayna markaasaa ruux masaajidka soo gala ugu horreeyo ayaynu muxuuha u xawantagamaynaa rasuulkaa soo galay waa lagu wada farxay kulli arrintii way isku dhammaatay rasuulkaa xilliyey sala allahu alayh wasalam marka waad arkaysaan bal qaarkooda habeenkii usoo kala dhuuman jireen say u dhegaystaan qur-aanka uu aqrinhaya rasuulka sala allahu alayh wasalam oo aqrinhaya say usoo kala dhuuman jireen waxa keli ka reebaya xaqa inay aqbalaan kibirkaas iyo xasadka unbaa ka reebahayey maantana kuwanna waxaa unbaa haystaa rasuulka sala allahu alayh wasalam ilaahay baa badbaadiyey subxana wa tacaala akhlaaqdaasi kariimka ilaahay baa siiyey oona ku sheegay acdaadaasna way ogaayeen laakiin ilaahay subxaana wa tacaala kaana qadarahu lkowni wuxuu xukumay inayna dadkaasi islaam ayna soo gelin bicadli minhu ayna naarta jahannamo galaan naarta jahannamo ay galaan waad garanaysaan abu sufyaan markuu radia allahu canhu intuuna soo islaamin markuu heriqle u tagay uu su-aashii u weydiiyey uu yidhi hal kuntum tattahimuunahu bilkadib hadda ka hor been ma ku tuhmi jirteen qabla an yaquula maa qaala al'aan wuxuu hadda dhahay qaala laa ballanta ma guub yeeli jiray la wuu ammaanay rasuulka sala allahu alayh wasalam wuuna ogaa waktigaasi waxaasoo dhanna rasuulka sal allah alay inuu ku sifaysan yahay kheyrkaasoo dhan muuna rumayn lakiin ilaahi subxaana wa tacaala markii dambe waafajiyey islaamka markaasuu ninkii hiriqle uu yidhi saad sheegi hadday tahay wallahi meeshan aan ku taagna wuu hanan doonaa bu meeshan aan ku taagnahay buu hanan doonaa waxay ku sugan yihiin way garanhayeen marka acdaadii waktigiisa la noolayd ayaa u qiray run iyo akhlaaq wanaagsan iyo dabeecad wanaagsan rasuulka sala allahu alayh wasalam u qiray markaa maxay ka qaadahayaan kuwa hadda jooga iyagana maxay ka sheegeen rasuulka sala allahu alayh wasalam kuwa hadda joogana way ka hadleen rasuulka sala allahu alayh wasalam ee gaaladaa ka hadashay ee ka qortay buwagta ee fiirisay akhrisay siiradiisa akhriday haddaan soo qaato muxuu ahaaye mithaalla waxaa ka mid ah ninkii hindiya maamuli jiray ee mahatama gandi la dhihi jiray ee 1869kii ayuu dhashay ninkaa 1948 waa dhintay nin siyaasi buu ahaa almurshid الruuxi wazaxiim الruuxi lilhindi buu ahaa khilaal xarakati istiqlaal الhind ayuuna aad u soo baxay ninkaasi wuxuu yidhi aradtu an acrifa صifaat الrajuli aladi yamliku biduuni nisaac quluuba malaayiin الbashar inaan ogaadaan damcay sifaatkiisa inaan ogaado rasuulka siiradiisu aqriyay markaa
سيرة أقريي إن بدن بك أقريي مركز وحي لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته ما هن سيف ويري إسلام كميش وحكو قاري سيف ما هن بويري وانين قال أساس له بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول صلى الله عليه وسلم مع دقته وصدقه في الوعود وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته رسول كاسي أيو أقري سفديسة قرار كاس وصوصاري وحو يري وحي كو غارن انتاسي رسولك صدقيسا إيا بلنتيسا إيا إخلاص كيسا وإخلاص وها أصحابتيسي صاحبدي إيا جيسنمديسا إيا كالسوني إلهي جيسي رسالتيس وكو قبي أيو ماشا كو غاري ما هن دين الإسلام كسيف كما في سيفنا كما غارن أرنتاسي وشهادة وين ويان شهادة أد وين ويان مركا وانين قال أساس أو قال لمانا كودنتي قال لمانا كودنتي نينكي قال كاها مايكل لديه جري سانا كقري كون كبقول كنين أدونك وجود تأثير بدن مركو كقري وحو يري وفيرس مقدمة ظهر وكب الله هذا الكيس وحو يري نكاس وحو يري وحان أدورتي هدي اللي ده ما حد أدورتي رسولك صلى الله عليه وسلم نكاسي ما حد أدورتي هدي اللي ده maxaad u dooratay haddii la dhaho wuxuu yidhi waxaan u doortay ta'hiirka uu ku yeeshay iyo noloshiisa waxa uu ka bedelay dadka intaa la eg ilaa yowmina haadana uu yahay nin raad leh oo kule atbaacdiisa iyo muslimiinta ku nool adduunka oo dhan intaana nin sameeyey ma lahu yidhi kitaabku ilaahay u dhiibay uu sheegtay inuu ilaahay u soo dhiibayna wuxuu yidhi waa halka kitaab 13 qarni ilaa maantadan uu joogo aan la bedelin وسيد لوجو سودي رسولك وصار رأي ويا إلى ما انتظر ساسونا ده هنينكاس وشهادة من الكفار واي من الكفار وحكم إذا ننكر هاي إذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس قلنا إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان من أعظم عظماء التاريخ هدان وحيري أن في إنه حق عظمة يروح وين وحورات كوي الله يدك وحنا له ناوي محمد صلى الله عليه وسلم وحوها دتك تاريخ عظمتها أعظم كذب وها كي وينا وننقال وحساس ننقال ويان وأنا كان محمد مايكل هارت أنا ليش هذا الكيس وحيري إن اختياري محمدا ليكون الأول في قائمة أهم الرجال التاريخي ربما أدهش كثيرا من القراء إلى حد قد يثير بعض التساؤلات ولكن في اعتقادي أن محمد صلى الله عليه وسلم كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل أسمى في أبرز في كل المستويين الديني والدنيوي وكقول يستوي ورنكاس وكقول يستوي أن محمدا هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي وبعد 14 قرنا ما يزال أثره قويا متجددا بوي raadkiisa ilaa maanta uu xoog badan yiri markastana uu soo noolaanaya raadkiisa marka waxa weeyaan waxaad arkaysaa waxa soo dhan ay gaaladii ka marxaati kacaan inta ilaa dhowr ruux oo soo qoray oo kulli ka tilmaamayso inuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu cadiim ahaa waxa kamid ah Leif Tolstoy nin dhaho oo 1828 dhashay 1910 kan dhashay oo Ruusi ahaa wuxuu yiri yakfi Muhammadan fakhran أنه خلص أمة ذليلة دموية من مخالم شياطين العادات الذميمة وفتح على وجوههم طريق الرقى والتقدم وأن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ساسويري وحلاها وحاكفلا محمد فان وقفلا فخري إنه أمداسي عربتا تاريخ ذي اللغة إسعوني جرتي إسدلي جرتي إسآسي جرتي إنه كسو صاري عادوين كاحن una u soo bixiyay hormar uu gaarsiiyay adduunka dhan ay ku hanteen 8 sano meel hatta aan lagu hanan karin 800 sano shariicada nabi maxamed oo loo soo dhiibay way kor noqon doontaa buu yiri adduunkana way maamuli doontaa linsijaamiha maca al-aqli wal hikma aqliga iyo xikmadda ayay waafaqaysaa buu yiri macnaha waxaan kaloon haysano aqli iyo xikmadda ma waafaqayaan ka wada marka waxa weeyaan marxaatidaasi aad arkaysaan waxaan leenahay كان خبلك دقنك هذا كو هذلي واصحابك هؤلاء واسلافك يددك هذيك هريواي كا علم بدنا كان قيمه بدنا
adigaasi muxuu ahaa ardaalka ee jirkaaga bedelay ee haddana muxuu ahaaye waxaan qiimo lahayn oo dadkii kaa horreeyey ee gaalnimada ku dhintay ay ka xishoon jireen samayn haya wakaa dadkii kaa horreeyey saasay u hadleen adiga haddaad xanuunsan tahay ilaahay uu xanuun kugu riday khayrulbashar waxbana ka qaadi maysid marka walaalayaal rasuulka sala allahu calayhi wasalam saan idiin soo hormariyeba waxa weeyaan intan aynu sheegayno waa la iska weheshanaya mooga inta ilaahay baa nagu filan subxaana wa tacaala oo ilaahay subxaana wa tacaala uuna dhaxashiyey oo diintaa uuna siiyey annagana qiimo aan ku yeelannay rasuulka sala allahu calayhi wasalam risaaladiisa iyo iimaankiisa aynu ku yeelannay qiimahan ilaahayna subxaana wa tacaala uu raxmad oga dhigay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin naxariisun baynu kuu soo diraa layidhi oo caalamiinta naxariis baad u tahay rasuul allow markaa naxariistaasaa ilaahayna siiyey oona ilaahay ku shukrina subxaanahu wa tacaala ilaahayna subxaanahu wa tacaala aan ugu dhowaano inaan siiradiis aqrino oona difaacno rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo qalbigeenna aan ka xumaado oona muxuu ahaa nafteenna aan ka jeclaano ehelkeenna aan ka jeclaano maalkeenna aan ka jeclaano wax kastoo ilaahay subxaana wa tacaala uu nagu gala sheegtay aan ka jeclaano oon nafteenna ku furana rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka walaalayaal ee shahaadooyinka aynu sheegnay waxay ku tahay xujo reer gaalaad oo ku xadgudbay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee rasuulka sala allahu alay slam ku xadgudbay oo muslimiina iyagana waxa weeyaan ilaahayba subxaana wa tacaala ka argoosanhaya kuwan gaaladana ilaahaya ka argoosanhaya subxaana wa tacaala ee ilaahay subxaanahu wa tacaala shaqadaasi wuu qabanayaa wuuna ballan qaaday innaa kafaynaaka almustahzi'iin buu yidhi annaga laakiin mu'miniin haddaan nahay rasuulkeenna isagoo annagoo nool oo joogno si walaalkeen sheekh bashiir uu sheegay in lagu xadgudbo waxa weeyaan way nagu weyn tahay raallina kama ihin diyaarna uma nihin nafteennana ku furanaynaa oynu ilaahayna subxaana wa tacaala ugu dhowaanaynaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam laakiin rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaan idinku bishaaraynaya wax gaari karo ma jiro sharaftiisa gaari karo cirdigiisa gaari karo akhlaaqdiisa gaari karo wanaaguu caalamka uu siiyey gaari karo diintiisa wixii ku qornaa ee axkaam ah waddankuu jooga isaga oo maanta gaalkaa xun oon qiimaha lahayn ilahay agtiisana qiimaha ku lahayn bal ka fadli badan yihiin xoolahay ka fadli badan yihiin inhum ilaa kal ancaami bal hum adal yuu yihi ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ka fadli badan yihiin waddankiisa uu joogo hadduu qiimo ahaan uu cilmi leeyahay hadduu maxaakimtooda iyo kutubtooda iyo muxuu aha falsafadii islaamka ee faransiiska ay ka faa'iidaysteen hadduu og yahay muuna u hadleen sidaasi oo maanta islaamka meeshaa soo gaarsiiyey wuu og yahay hadduu taariikhda gadaal u aqrin lahaa ondolos markay muslimiinta haysteen say uga faa'idaysteen boqortooyadii muxuu aha faransiiska haystay ilmahooda ay u soo diri jireen ondolos waddanka hadda spain ah in ay ka bartaan cilmiga oo ay falsafada ka bartaan oo ay ka bartaan culuumta lagu horumaray adduunka maanta iyagay ku horumareen marka waxa weeyaan waa nin horumar la siiyey maantana muxuu ahaaye kugu xumaaday samin kalbaka ya'kulka weeyaan eygaaga cayili ha ku cuno maanta meeshay gaareen islaamka iyo culummadii muslimiinta ayaa meeshaa gaarsiisay wuu og yahay kaniisadihii waktigaasi ondolos la haystay ee ku noolaa ee xukumahaya faransiiska iyo ingiriiska in ay wixii caalim oo dhan ay gowraci jireen oon lala rabin wax horumar ah in la gaaro marka waxaynu leenahay ikhsa ilaahay subxaana wa tacaala ha kaa argoosto si deg degna ilaahay subxaana wa tacaala calaamadihii ha kaa soo saara ay bini aadam ku cibro qaadan lahayeen rasuulka sala allahu alay slm waxba ka qaadi mayseed haddaadan caqli lahayn oo nafsiyaad kale iyo stress kale ilaahay subxana wa tacala uu kugu imtixaanay sabab oo adoo xanuunsan oo akhlaaq xunna ku dhaqmay oo muxuu ahaaye dad xunna ay ku ag fadhiyaan sababta hadday tahay kuwan asxaabtaada ah ee walaalaha ee jahannamo haddaad sidan ku dhinto aad la geli doonto markhaatidoodii bal gadaal ugu noqo oo bal naftaadana gadaal ugu noqo oo istoosi ayaanu ku leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga dhigo dadka sunnadiisa ku dayda ee muxuu ahaaye rasuulka sala allahu alayh wasalam difaaca ee akhlaaqdii rasuulka sala allah alay slm ku dhaqma ee diintan u khidmeeya difaaca ilaahayna subxaanahu wa tacala ha naga dhigo kuwa yakuunuuna fii zumratihi jamaacadiisa rasuulka noqon doona oo rasuulka sala allahu alayh wasalam sababtiisa uga badbaadi doona naari jahannama ilahay iimaanka ha nagu sugo iimaanka rasuulkana allah nagu sugo sala allahu alayh wasalam hana badbaadiyo addunya aakhira khaatumada allah nooga jiyo billahi towfiiq wasala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam جزاه الله خيرا دكتور عبد العزيز علي أحمد وكهد لهي ما شهد له الأعداء من المصطفى صلى الله عليه وسلم هدنا وحن كوريجينا هيا ما الواجب علينا نحو الرسول صلى الله عليه وسلم وكهد لدونا الدكتور شيخ موسى داهر أويس. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعا iyo barnaamijkan dadkaasoo isku soo dubariday oo mathalaya macadka oo doctor cabdilcaziiz iyo ay nagala joogaan iyo culummada ka qayb qaadatay oo kelimaadka aad u qiimaha badan aan noo soo jeediyey, dhammaantood waxaanu leenahay ilaahay subxaanahu watacaala ha idinka ajarsiiyo fii miisaani xasanaati min allah yeelo. mowduucu maxaa nagu waajiba nabiga xaggiisa sala allahu calayhi waalihi wasalam. wuxuu qeyb ka yahay kelimaadkii macaanaa ee culummada iga horreysay soo wada jeediyeen. marka ugu horeysa intaanan mowduuca hore u gelin, doctor cabdilcaziiz iyo culummadii horeba hadaladooda wax ku jiray kelimo yar. qof hadda nabiga sala allahu calayhi wasalama afgaadha oo oon hadal aan u habbooneyn ku yidhaahda, nabiga horta waxba ka dhibi mayso, diinkana waxba ka dhibi mayso. culummadu waxay tusaale ahaan usoo qaataan hashaan kaneecada dadkuna dhilmaanyada u yaqaano aad bay u yar tahay, una miisaan yar tahay. marka geed weyn ama buur bay ku degtay, markay duulaysay la hadasho waxay tihi buuryahi isceli waan duulayaa yaadan dhicine. saasoo kale la mid tahay qofka nabiga sala allahu calayh wasalam doonaya inuu afgaadho. inta haddaan uga gudubno, maxaa nagu waajiba? bardu markaanu sidaa leenahay muslimiinta dhan baan u jeedinaya, qolo hadda mucayana uma jeedino. afraad aan hadda halkan ku joogno ama in hadalka iyagu gaadho keliya looma jeedo. ummadda muslimiinta ah oo idil maxaa ku waajiba naxwa nabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalam. nabiga markii la yidhaahdo maxaa ku waajiba? waxyaalo badan baa nagu waajiba. waxyaalaha nagu waajibka waxaa ka mid ah, horta nabiga sala allahu calayh wasalam qadarkiisa iyo cadamada ilaahay agtiisa uu ku leeyahay iyo karaamada iyo inuuna basharka iyo bini aadamkaba la mid ahayn inaan horta ogaano. taa horta aan ogaano. jahli badanaa naga haysta oo qaar badan oo annaga naga mida waxaa laga yaabaa dadka muslimiinta ka mid ah wax macluumaada oy nabiga ka haystaanba inaynan garanayn. qofku hadduuna nabiga garanayn sala allahu alay wasalam diinkana ma fahmi karo. xaqiiqatan waxaa lagama maarmaana qofku diinka uu haysto u nisbo sheeganayo nabigii la yimid inuu wax ka garanayo. hadduu qofku nabiga wax ka garanayo yaqaano siiradiisa uu daraaseeyana inuu nabigana jeclaanayo diinkana ku dhegayo waa shakila. markii oon la yidhaahdo nabigiibaa wax laga sheegay baan xamaaso yar oo aan meel weyn sii jirin oo inay wax bi'isa mooye aan waxba hagaajin unbaa laga yaabaa inay naqaado. xamaasaddu way fiican tahay in laga xamaasoodo, laga xanaaqo, loo danaaniyo nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalama. laakiin haddaadan cilmigii garanaynin amaadan nabiga qadarkiisii garanaynin, waxaad bi'isaa badnaanaya waxaad nabiga ku tarto sala allahu calayhi waalihi wasalam. tusaale yar haddaan idiin soo qaato, waktigii nabigu joogay sala allahu calayhi wasalam, nin nabiga dayn ku lahay baa yimi. markaabuu si qallafsan oo nabiga aan u habboonayn buu kula hadlay. waa sifaadkii sheekh bashiir uu ka sheekeynayo kale oo ku yidhi, adinku reer bani cabdilmuطalib haddaad tihiin waxaad tihiin qowman muطal. muطalku waxa weya qofka dadka meermeeriya oo xaqooda hadba dib uga dhigo oon daynta siinin. marka dayn buu ka rabaa, yani si wanaagsan uma weydiisan. had iyo jeeraale waa dadkaad xaqooda dib uga dhigtaan oo waad meermeerisaan oo waxaa weeyaan ballamaad siisaan. nin saxaabadii nabiga ka mid ahaa radia allahu tacaala canhu ayaa xanaaqay. markaabuu ku yidhi, ma rasuulka ilaahay baad sidaa ku leedahay? oo weliba unu maaragtay muxuu aha. markaabuu nabigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalama, la hadlay saxaabigii oo yidhi, aniga iyo asaguba waxaad hadda ku hadashay ama mowqifkaaga waxaan ahayn baan kaaga baahannahay. anigana maad i amartid xusni aladaa, isagana maad amartid xusna alab, inuu si wanaagsan u dalbo xaqiisii. asagana amar, anna i amar inaan maaragtay muxuu ahaa aan xaqiisii u guto. xamaasada marka noocaas oo kale tahay mararka qaarkood haddaynan aanan nabigii looga dayanaynin sala allahu calayhi waali wasalam waxbay bi'isaa.
gaaladuna waa iska dabiici inay nabiga sala allahu alayhi waalihi wasalama ay ku aflagaadoodaan, inay diinka ku aflagaadoodaan, inay ummadda muslimiinta ku aflagaadoodaan. waa shay dabiiciya, ma aha shay gariib ahoo lala yaaba ma aha. qadiiman wa xadiidan intaba way jiri jirtay. yacni waqtigii nabigu dacwada ku jiray bay ku aflagaadoon jireen, waxaan ku habboonayn ay ku sifayn jireen. waqtigii nabigu uu joogay muslimiinta dhexdeeda qaarkood xataa bacd almuslimiin qayb uu nabiga qaybiyey inay yidhaahdeen haadihi qismatun maa cudila fiiha, waa qayb aan lagu caadilnimo samayn. yacni inuu nabiga dhib ku yimi oo dadku munaafiqiintu waa dhibeen waa badan tahay. waliajli dalika nabigu hadalkaas aad buu u xanuujiyey ilaa uu yidhahdo raxima allahu muusa laqad uudiya akthara min dalika fasabr. yacni ilaahay nabiyullaahi muuse ha u naxariisto, waa la dhibay intaa in ka badan, markaasuu sabray. nabigu sabarkii buu qaatay, waxna uma geysan. salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi qofkii sidaa yidhi ee munaafiqa ahaa waxba nabigu uma geysan salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh. mu'miniintiina waa laga nahiyey oo waxaa la yidhi walaa takunuu kaladiina aadaw muusa nacam fabara'ahu allahu mima qaaluu. ha noqonina muslimiintii baa laleeyahay kuwii nabiyullaahi muuse dhibay oo kale, oo markaa adinku aad nabigii dhibtaan salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh. markaa nabi muuse ilaahay uu beri yeelay. yani waa abiici marka in ambiyadii la dhibo. ambiyadoo dhana la dhibi jiray, nebi moxamed keliya ma aha salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh. ambiyadoo dhan bay dhibi jireen, nabi moxamed baa la dhibay qadiiman wa xadiidan. ilaa yowmina haadana qole ku aflagaadooda waa imaanaysaa. sababta dhaqaajinaysaani waa maxay? waa cadaawo ku jirta. qofka cadaawaddu hadday ka badato caqligiisay baabi'inaysaa, way fooraraan. waxyaalaha hadda doctor cabdilcaziiz oo hadda noo sheegay oo xataa ay ka qoreen muthaqafiintoodii iyo kuwoodii culummada ahaa oo nabiga sifaadkiisa iyo wanaaggiisa ay ka markhaati kacayaan, hadday akhriyaan wax badan bay ogaan lahayen inay caqli ku akhriyaan. laakiin qofku markuu ka bato cadowtinimadu caqligiisu wuxuu noqonaya wax foorara, weel fooraro waxay lagu shubaa aanay gelaynin oo kale buu noqonaya. waxayna ka socotaa ibliis. ibliis ilaahay subxaana watacaala cadowtinimo uu abuuray midii ugu badnayd baa ku jirta, wuxuuna u qabaa bashariyada iyo bini aadamka. sababto ay tahay nacalad baa ku dhacday, naar baana u waajibtay. bini aadamkiina rusushii ilaahay usoo diray baa in badan oo ka mid ihi rumeeyeen, jannay ilaahay ka rajaynayaan. midaabuu ka xanaaqsan yahay marka inay naar la galaan buu rabi lahaa. in fara badanoo marka bini aadamkay ka mid ihina waa raacday, sida ilahay ba qur-aankiisa noogu sheegay. way raaceen isaga iyo intii raacdana naar bay gelayaan. saa darteeda intii raacdayna waa xisbigiisii. cadowtinimada marka ugu badan waxaa qaba ibliis, wuxuu u gudbiyey xisbigiisii. labadoodoo wada jirina cadowtinimada ugu badan bay qabaanoo waxay u qabaan rusushii iyo atbaacdoodii. marka inay nabiga wax ka sheegaan waa iska dabiici. cadowtinimada ilaahay iyaga ku abuuray. qad badat albagdaau min afwaahihim wamaa tukfii suduuruhum akbar. caradii carabkooda bay ka muuqatay, waxa qalbigu qarinaya mariidka ah ay muslimiinta iyo diinka islaamka u qabaana ka badan iyo nabigii islaamka. waa iska dabiici. innaga marka maxaa nagu habboon? waxaa nagu habboon inaanu baranno horta nabiga qadarkiisa iyo cadamadiisa ilaahay agtiisa. waa rasuul. waxa ilaahay abuuray bashariyada ama thaqalaynka ilaahay u abuuray, cidda ilaahay agtiisa ugu karaamada badan ee ugu mansilada weyni waa ambiyada. ambiyada naftoodii baa kala fadilan oo ilaahay subxaana wa tacaala wuu kala fadilay. tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacd. qaarkoodaan qaarka aan ka fadilnay. nebi moxamed kuwa fadilan buu ku jiraa oo weliba ah oo la yihahdo ululcasmi. haddana waxaa weeyaan sayid اlbashar. nabiga salى اllahu alayh waalih wasalam waxaa laga wariyey fi xadiisin saxiix inuu yihi ana sayidu waladi aadam walaa fakra. anigu waxaan ahay aadam ubadkiisii kan ugu sayidsan. sayid اlqowmina waxaa weeyaan waa midka ugu khayrka badan. sayid waxaa la yihahdaa sayid اlqowm ay akhyaruhum, kooda ugu khayrka badan. nabi moxamedna waa sidaas. sayid اlbashar bal sayid اthaqalayn bal sayid اlambiyaa. taa shaki kuma jiro. qur'aanka haddaad soo qaadatid kula aaya iyo axaadiista nabiga salى اllahu alayh wasalama, nabiga sharaftiisa iyo karaamadiisa iyo qaymihiisa iyo qadarkiisa iyo cadamadiisa ilahay agtiisa uu ku leeyaha kaaga muuqanaysa. lama koobi karo qur'aanka o dhan 10 daqiiqo halkan laguma soo koobi karo iyo wax lamida ama ka badan, maalin dhan haddii xataa laguma soo koobi karo.
laakiin inta adiga uga qanac waxaad kalood uga qanacdaa ummaddan nebi moxamed sala allahu alayh wasalam bicadiisii ka hor waxay taagnayd naarta jahannamo qarkeeda ilaahay baa ku badbaadiyey nebi moxamed sala allahu alayh wasalam waa insaan sidaasihi ogow calaa shafaa xufratin min annaar ayaa dadku taagnaayeen nebi moxamed baa ilaahay ku badbaadiyey sababtu waa maxay nebi moxamed markii ilaahay soo bixinayay dadka jooga laba unbay mid ahaayeen mushrikiin asnaam caabuda iyo ahlu kitaab oo yahuud iyo nasaaro ah oo dad ahlu cilmi ahaa oo ilaahay kitaab usoo dejiyey oo rasul ilaahay usoo diray oo ahlu iimaan ahaa laakiin inxarafuu dariiqii bay ka leexdeen kitaabkoodii bay bedeleen rusushii bay caasiyeen ilaahay bay caasiyeen ilaa ay markii dambe gaarsiiyaan ambiyadii ilaahina ilaahya ka dhigtaan oo nasaara waanu naqaanayo nabiyullaahi ciise ilaah ka dhigteen ay caabudeen wa hada baatil yahuuda cusayr caabuday oo ilaah ka dhigatay marka wax ay isdhaameen ayaga iyo mushrikiintu ma jirin ummad ilaahay u carooday bay ahaayeen oo cuquubadii ilahay inay ku soo degto halis u ah ilaahay baa ku badbaadiyey nebi moxamed sala allahu alayh waalihi wasalam waxaan kaloo ka dheehanaynaa macnahaas nin la yidhaahdo xudayfata bnu lyamaan baa nebiga su-aal weydiiyey su-aashuu weydiiyey wuxuu ahaa yaa rasuula allah kunnaa fii jaahiliyati wa shar jaahiliyo iyo shar baan ku jirnay jaahiliya waxaa la yihahda wixii islaamka khilaafsan waxa ilaahay jecel yahay addoomihiisana la jecel yahay hadday la imaan lahaayeen uu raalliga ka yahay ugana raalli noqday weliba uu amro u sharciyeeyey wixii khilaafsan oo dhan ayaa la yidhahdaa jaahiliya oo ilaahay necab yahay marka jaahiliyad baan ku jirnay shar baan ku jirnay fajaa'ana allahu bihada alkhayr khayrkan baa ilaahay noo keenay khayrkuu tilmaamayahay waa bicatu nabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam waa nebiga soo bixintii ilaahay uu soo bixiyey iyo kitaabkii uu usoo dhiibay iyo risaaladii oo markaa dadka uu nebigu ku badbaadiyey sala allahu alayhi wasalam su-aashuu marka weydiinaya waxay tahay fahal bacda hada alkhayri min shar khayrkan aan hadda haysano islaamnimada shari ma ka dambaysa shartuu ka baqaya waxaa nooga filan minadii ilaahay uu ku manaystay addoomaha mu'miniinta yacni ilaahay wuxuu addoomaha mu'miniinta nicmooyinka uu siiyey iyo minanka midda ugu weyn waa bicatu الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam laqad mana allahu calى اlmu'miniin id bacثa fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucalimuhum اlkitaaba wاlxikma wain kaanuu min qablu lafii ضalaali mubiin rabbi tabaaraka wa tacaala isagoo weliba khabarkiisa akthar min mu'akid aad u ta'kiidinaya laqad mana allah laamka waa lilqasam qaafkuna waa litawkiid qad laqad mana allah wallaahi waxaa dhab ah ilaahay inuu ku manaystay nicmo weyn oo ilaahay nagu manaysanaya weeye yaa lagu manaystay cala almu'miniin ilaa nebiga waxaa ka faa'iidaystay waa dadka mu'miniinta kuwa kale niqm buu ku ahaa maadaama ay beeniyeen qof nabiga salى اllahu alayhi wasalama bacda bicatihi salى اllahu alayhi wasalama yacni nabiga maqlay ama warkiisu gaadhay ee markaa aan rumaynin oo ahlu naar inuu gelayo nabigu noo sheegay salى اllahu alayh wali wasalam idan niqmay ku tahay laakiin mu'miniintay midna ku tahay laqad mana allahu calى اlmu'miniin id bacثa fiihim rasuula min anfusihim rasuul iyaga ka mida oy nasabkiisa yaqaanaan oy dabcigiisa yaqaanaan oy sifaadkiisa yaqaanaan oy carafkiisa yaqaanaan oy weheshanayaan oy suuragal tahay inay maaratay inay wax weydiiyaan oo uga jawaabayo salawaatu اllahi wasalaamu calayh oo dhibkooda ka danqanaya oo naxariistiisu aad u badan tahay nabi saasa in ilaahay u soo diro waa mino oo weliba ugu khayr badan ugu fadliga badan qiraa'a waxaa jirta min anfusihim ay min anfasahum yacni ugu qiimaha badan oo ugu fadliga badan ah baa loo soo diray maxaa lala soo diray yatluu calayhim aayaatihi aayaadkii ilaahay ee bayinaadka ah ee cadcadaa ee waxyaalo badan oo xaqaa'iq ah aan ka faa'iidaysanayno xuquuqda ilaahay nagu leeyahay xuquuqda rasuulku nagu leeyahay sala allahu alayhi waalihi wasalama xuquuqda maaragtay bini aadamka iyo basharka uu nagu leeyahay waalidku kuu nagu leeyahay walaalku kuu nagu leeyahay darisku kuu nagu leeyahay islaamnimadu muslimku kuu nagu leeyahay xataa hayru lmuslim kaafirka xuquuq nagu yeelanaya wuxuu nagu leeyahay waxaasoo dhan kulli noo caddaynaya
ummad indhala baan ahayn aayaad ilaahay oo iridda noo furay oo wax noo iftiiminaya yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wuu taskiyeynayaa waa tahirayaa dunuubtii akhlaaq xumadii aan u habboonayn kufrigii waxaasoo dhan buu ku dahirayaa oo wuxuu ku dahirayaa iimaanka ilaa qofku markuu islaamo oo ilaahay uu rumeeyo islaamnimadii dunuubtoo dhan bay ka mayrtaa alislaamu yahdimu maa qablah wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma kitaabkii qur'aanka ahaa cilmigiisii buu barayaa wuxuu kaloo barayaa sunnadii nabiga sala allahu calayhi wasalam ilaa qur'aanka iyo sunnadu waa waxyigii nebi moxamed noola yimid oo ilaahay noogala yimid waa diinkii nebi moxamed noola yimid salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh minnada marka sidaas ahee aad iyo aad u weyn oo ilaahay nagu leeyahay shaksiga ilaahay noogu manno sheeganaya waa nebi moxamed waxaad garanaysaa afdalu khalqi illaahi inuu yahay wa acdamu darajatan cinda allahi inuu yahay halkaa ka garanaysaa saa u baro marka markaad sidaa u baratidna haddana waxaa weeyaan waa inaad nabiga ammaanadiisii inaan xambaarno risaaladii nebi moxamed la yimid ee ummadda badbaadinaysay nebi moxamed nabi kama dambeeyo ummadihii naga horreeyey ambiyadu waa isdaba joogeen markay nabi tago nabi kalea ka dambayn jiray laakiin nebi moxamed nabi kama dambeeyo waa lagu khatimay risaaladii nabinimad baa lagu khatimay ammaanadii marka uu nebi moxamed noo keeno annaga ilaahay nagu badbaadiyo minnada ahayd waajibkeedii dadka muslimiinta buu saaran yahay waliajli dalika nabigu leeyahy sala allahu alayh wasalam dadka ahlu cilmiga waana alculamaaa warasatu alambiyaa lam yuwarithuu dinaaran waana alambiyaaa lam yuwarithuu dinaaran walaa dirhaman wainamaa warathuu alcilma aw kama qaala sala allahu alayhi waalihi wasalam dadku ahlu cilmiga waa muslimiinta waxaa weeyaan ambiyadii bay dhaxleen ambiyada xoolo dirham iyo dinaar lagama dhaxlin cilmi baa laga dhaxlay cilmi baa laga dhaxlay culummadu marka waxay yidhaahdaan qofka la dhexlayo qofka wax dhexlaya qofkii la dhexlaya buu makaankiisii joogaa nabiga maadaama cilmigii laga dhaxlay nabigu cilmiga waa faafin jiray waa nashrin jiray ummadduu ku badbaadin jiray cadaabka ilaahay caradiisa uga badbaadin jiray makaanadaas buu joogaaye waa inuu qaadaa oo dhabarka saaro ammaanada u gudbiya waxaan ognahay dabeeco u leenahay qofka dhaxalkii aabbihii haddii laga qadiyo weer cad buu xirtaayo waa ka dagaalamaa aad buu uga dagaalamaa seebaa dhaxalkii aabbahay la iiga qadiyey ma inaan aabbahay dhalinoo wacal ahay baa la ii qarinayaa dagaal buu ka xigaa haddaba marka dhaxalka ka weyna waa dhaxalkii nebi moxamed sala allahu calayhi waalihi wasalam waa cilmigiisii waxaa nagu waajibka ahi waa inaan dhaxalkiisii cilmigiisii aanu nasiib ka qaadana xadiidka waxaa ku jiray faman akhada bixadin waafir qofkii dhaxalka ambiyada wax ka qaato cilmiga ah wuxuu qaatay nasiib aad u weyn yaynaan ka qadin adiga unbaa iskana qadin kara ama nasiib badan oo weliba waafira ka qaadan kara juhdigaaga bay ku xiran tahay mas-uuliyadda cilmiga inaad nashrisid ammaanadii nebi moxamed ummadda ku badbaadiyana la qaado wayna saaran tahay taasi waa lagama maarmaan yaynan u dayma la'aan yacni inaad caadifo keliya intaad caadifa ku qaaddo adoon aqoon lahayn midida aad la boodid ee markaa waxaa weeyaan ficilkaaga laga yaabo dhib kaleeto diinkii nabigaba sala allahu calayhi wasalama sumca xumo u keenaysa intaad la iman lahayd adiga oo waxaa weeyaan aqoon leh oo cilmi leh oo sida nebi moxamed sala allahu calayh wasalam loo difaacaya garanaya waxaad ku difaacdana aad garanaysid difaac yacni nabiga sala allahu calayh wasalam fadaaishiisa nashri muxaadaraad ka jeedi kutub ku qor de maba taqaanida haddaanaan aqoonin oona waxba ka aqoonin maxaan markaa aanu nashrina hadihi waaxida midda kale nebi moxamed sala allahu alay slam sunnadiisa noolee diinkiisa noolee yacni dacwadii wad ilaa ay ummadda gaadho walaa siyamaa waktigan oo kale oo hadda gaaladu sidaasoo kale ay nabiga ugu aflagaadoodaan waxaa dhab ahoo xaqiiqaha qofkii cilmiga lihi hadduu hadlo ummado badan baa ku islaama hadda nafteeda ma aqaanin intee usbuuc mayaan laga joogaa baan umalanaya hal usbuuc baa laga joogaa maalmo dhoweyta waxaan ku arkaya meelaha social mediaha dad badan oo majmuucaha lasoo dhigay oo faransiiska naftoodii oo islaamaya oo loo qabanayo maarata muxuu shahaadada loo qabanayo marka haddaad cilmi leedahay laakiin haddaadan cilmi lahayn ee markaa waxaa weyn aad iska boodid waxaa laga yaabaa inaad adigu siiba xumaysidba ood u kaalmaysid ayaga naftoodii diinkii aad xumaysid way badan tahay lama gaari karo runtii nabiga jacaylkiisaba ka mida sala allahu calayhi waalihi wasalam
itibaaciisa baa ka mid a sunnadii nabiga sala allahu alay slm in la raaco oo la nooleeyo diinkiisiina nashriya baa ka mid a ummaddii khayrka loo sheego sidii nabiga uba naxariis ugu ahaa adiguna aad naxariis u noqotid runtii jaanibkaas markaad fiirisid muslimiintu aad iyo aad ayaanu maaragtay muxuu aad moodaa muqasiriin inaan u nahay difaaca nabiga markaan usoo noqonno mujtamacaadku waa kala dabaqaad maalan ninka ra'iisu dawla ah oo dowlad haysta iyo shaksiga fardigaahi nin walba mas-uuliyad gooniyaha saaran ninka ra'iisu dawla mas-uuliyad adag baa saaran qowlkiisu waa soconaya mararka qaarkood waxay gaadhaysaa gacanta isagaa ku habboon taariikhdan islaamka oon akrinay nin waxaa jiray muslimiinta mar soo xukumi jiro muctasim la yidhaahdo meel niman la yidhaahdo nimankan hadda yurubtaba ay ka mid yihiin naftoodu niman la dhihi jiray boqortooye ahaayoo la dhihi jiray rumaanka ayaa magaalo camuuriye la yidhaahdo ay markaa haysteen oo kadib muslimiintu ka qabsatay cahdi baana ka dhexeeyey muslimiinta iyo qoladaas markaaba waxaa weeyaan gabar unbaa markaa si xun oona munaasab ahayn ayaa loogu muslimadahayd ayaa lagu sameeyey magaaladoodii markaasay ku calaacashay waa muctasamaa way carootay waxaa lagu sameeyey ka xumaatay waa muctasamaa ninkii marka waxaa weeyaan muctasam ninkii muslimiinta xukumo buu ahaaye markii warkii soo gaaray ba inta istaagay ayuu yihi labayka ayatuha alxura ku ajiibay ayatuha alxura markaasuu ciidan wuxuu bixiyaa la yidhaahdaa caaradkiisuna camuuriyadta joogo yani haraygiisa iyo dabaadigiisuna uu baqdaad joogo ilaa waxaa weyan uu ku soo celiyey oo ka qabsaday magaaladii si fiican uga qabsaday edbiyey marka ninka madaxda ah ee ra'iisu dawla ah ay isaga mas-uuliyad baa saaran si adag inay ru'asaa yani muxuu ahaa caalam alislaami nimanka madaxda u ahay inay uga jawaabaan oo war adag ficilna hadday ku dari karaan ay ku daraan taasi waa sha'ni waxaa soo horay afraadda dadka muslimiinta way ka xumaadeen waa inay nebiga difaacaan oo cilmigooda ay ku difaacaan marka qofkii cilmi leh kan cilmi lahayn soo maaha qalbiga ha ka naco hana jeclaado nabiga sala allahu alay waslm iyo islaamka iyo muslimiintu inay guulaystaan ama yani waxyaalaha hadda afcaasha qaarkood oo iska daa'ishka ah oo laga yaabo xataa muslimiinta meesha jooga inuu dhib badan u keeni karo dareemayna dhib badan buu keeni karaa hadda meelaha wixii ka dhaceen iyo waxyaalihii dhacay oo radulficliga ahaa dhib badan buu muslimiinta meesha joogay ayuu u keenay xaqiiqatan marka qofka fardiga ah ee muslimka ahi haddii uu cilmi iyo carab waxa ku cadayn karo ha ku caddeeyo hadduuna ku caddayn karin waa munkare qalbiga ha ka inkiro nabigana sala allahu calayhi wasalam in fara badan ha ku saliyo hana jeclaado diinkiisana ha jeclaado hana daraaseeyo marka xadiidkii waxaan kusoo khatimayaa man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi kaasi waa ragga suldada leh asxaabu sulta oo raggan hadda leeyahay xukamaa yani muxuu ru'asaau duwal oo muslimiinta iyagu hadday ku zuulin karaan gacan ha ku zuuliyeen waa munkarkii ugu weynaa faman lam yastadic fabilisaanihi waa dadka ahlu cilmiga ah faman lam yastadic fabiqalbihi qalbigu ka nacaya oo dadka kaleeto caadiga laa cindahum sulطة walaa cindahum cilm نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين خير الله سيو لمان dad ka qayb qaatay nadwadan allana subxaanaه watacaala awqaadooda iyo xoogooda iyo cilmigooda iyo caqligooda iyo awlaadooda allah u barakeeyo rasuulku sal allahu alayh wasalam difaaciisana waajib buu nugu yahay isagoona u baahneen muxuu ahaay ilaahina subxaanaه watacaala ammaanay walaysa yasixu fi اladhaani shay-un ida اxtaaja الnahaaru ilaa daliili haddii maalin soo baxday daliil uma baahno dadka dhan way wada arkaan rasuulkana waa sidaas weeyaan waan la wada arkaa iyo akhlaaqdiisii iyo saaxiib iyo acdaaw ay ka markhaati kaceen ilaahayna subxaanaه watacaala waxaan weydiisanaynaa in uu ilaahay subxaanaه watacaala muslimiinta meel kasta ay joogaanba dad diintooda ku dhegan alla ka dhigo oo wada mideeyo ilaahay uuna wada mideeyo subxaanaه watacaala anagana dembi dhaaf waasacna siiya wabillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina moxamed wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam مركزنا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب مركزنا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب مركزنا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا
نرقى ذرى السحاب. بالعلم والإيمان مركزنا ينادي، وصحبة القرآن مركزنا ينادي، نبغي رضا الرحمن مركزنا ينادي، والفوز بالجنان. مركزنا ينادي. بالعلم